asxaabta soo dhawaada saadaashaydii koowaad waa ii toost dagaalkii saddexaad ee adduunka weli waxa waaye waa aseystaan United iyo United Manchester United iyo Newcastle United. Manchester United waa badis saadaashaydii waa ii toost shalay waxaan dhahay Everton naadi lagu tasha karmaan naadi hoos ku jira waay tabardaro badan ka muuqato United na kaalin saddexaad u socotaa waxa waaye ayadaa guuleysanayso way guuleysatay gool u dhaliyay McTominay oo baryahan dhexda ka dheelay Casemiro maadaama maqay gool u dhaliyay oo saaxiib Sancho ka caawiyay dagaal badan iyo juhdi badan Manchester United maanta wuxuu qalmadeen 5 iyo 6 inay ku badiyaan Wan-Bissaka cun kii kale maxalla Antonio Nikio cun Nikio gool cunay waa la qasaar Cambia la maray Nikio ka soo baxala hurdaya la keenay hurday 10 daqiiqo markuu dheelay 11 daqiiqo 10 daqiiqo iska dheh gool ku toortay hurday Martial nagu ku sii laba eber sidoo kale maanta waxa u soo laabtay balkii Jiroli ninkii Laimer Erikson u soo laabtay Casemiro soo laabanaya hadda Manchester United kaalin dagaalka saddexaad ayada ku guuleysan doonto kaalin saddexaad ka wada dagaalka saddexaad ayada ku guul waayo Newcastle ko xabadna u dhiman hadda Brentford oo baxaysa ciyaarta soo gali doonto United booskan ayada leh si u badan tahay ayada ku guuleysanayso laakiin wali dagaal ka jira meesha wali dagaal ka jiro Newcastle Brentford adag oo baxay laakiin United ko kala u dhiman si adag United waa kana United saaxiibka hurday 11 daqiiqo dib gool u dhaliyay laba eber 2-0 saadaashaydii koowaad waa saxay Chelsea Newcastle City iyo Brio Arsenal iyo Liverpool ilaa kuwaas oo sugi doona laakiin hadda waa saxay saadaashaas waa ii toost hambali alle taageerayaasha United waa guuleysateen waana u qalanteen laakiin dagaalka saddexaad baa ka jiro dagaalka koowaad ma labaadna ma United waxay yeelatay hadda 56 dhibcood 56 Arsenal meesha ka leedahay 72 dhibcood 72 dhibcood meesha ka leedahay waxay leedahay 56 City waxay ka koreysaa oo hada kulan City baaq u yahay 8 ka koreysaa 8 kulanka baaq hadee badiso 11 Arsenal waxay ka sareysaa 16 marka wariyaan ugu daalin taageerayaasha United iyo dagaalka saddexaad meeshinaas jooga waa badiseen kaalintii lagu dagaalama aniga saddexaad waa niisiyay sa u badinayo hadaa is khasaarisiin adika ni taala Banooniga galabta dheeleen macalintana ka soo bandhigana iyo teamkiisana aad Banooni u sareeyo ahay Banooni kaalin saddexaad ku gali karaan ahayd Banooni oo Europa League ku qaadi karaan waay Banooni Casemiro xataa ka sii maqan Faran maanta ma dheelin Captain Maguire dheelay Banooni waxa waay FA Cup ku dagaalami karaan inkastoo City final iska la tagi karaan Brighton sama final ku adeeyeen warwariyaan ugu daalin nimankan United amaamadooda maanta ma haysan karo Everton waa dileen hambalyo dagaalka saddexaad horyaalka Talyaaniga barajooyin iyo qaab darro aad u daran ka socoto nimankii Napoli yahay Milan 4 ugu dhufta ama ugu dhufan horyaalka waa la tagnay taagan guulay gaareen sidoo kale waxa dhaawac ku baxay ciyaaryahan Rashford oo ciyaarta daqiiqadii 81 la bedelay ma la oga intuu qaado doono dhaawaciisa kulankiisii 300